السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام فينا أصحابي. دواني دكير الراقيو محل هذاي واسك حالة دموية. ما أنت قصدي دوحي كوسافسنت هاي إنير أو لبيتو من شرا أي وحيد اللي جرت ولا لهيد وشاكا دوا حقيقة محل هذاي يعني ودن كيبي كدا عاد الشيء كداسي إلان تاير هو يريد بشقة تيجي جرتي هالشقة تagtay intay shaqada ku maqantay inanta yar bay shaqada waxay kaga tegi jirtay guriga marka inanta yar markii guriga laga tago ilmaha yar ee caruurta ilmaha yar laga tago walaalkeeda sii dishaa markii disho ayaa wax loo yimaada ilmihiyo buka ilmihiyo meeyda loo yimaada ciidiba ma fahminba ciidiba ma fahmin oo waxa la mooyi jiray horta qadarka Ilaahay way socotaa laakiin ilmaha waqtigiisa waa dhamaaday laakiin meesha ilmaha in lagu dilo maxaa dhacday ciidiba ma ka filayninba waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ilmihii ugu dambeeyay afar bay ku dishay sida miya tolo mise saddex adhoon waxba saa ku dishay marka ilmihii ugu dambeeyay iyadoo ciijinayso dul taagan oo boqojinayso naqsi ku haysa lagu qabta dakaas waqtigiisa waa laabnay oo dhamaanin markii la qabtay inay lagu qabtay iyadoo saasmaynaysa waa la wareystay maxaa samaysa waxay tii waan sameynay kuwii hore baan asaa ku sameeyay ku dhintay oo way saa samaysa waxay tii hooyo aniga marba iga carta caruurtan hawshooda ma qaban karayo maxaa dhahday way dhibeen anigu ma dhalin anigu maxaa dhahay sida iyagu ciyaal yihiin ma ciyaal u ahay marka point-ka anigu aan ka wado waxa weeye hooyooyinka caruurtooda inta midda ugu roon odhanayaan caruurta kala ilaali waa khalad haddaanay weyneyn oonay qof weynaan ahayn oo dhowr iyo 10 jir aan ahayn matala 5 iyo 10 4 iyo 10 6 iyo 10 meelahaas haddaanay ahayn oo dee saacado ma hayadana taamar ben laga carree saacado aad oranayso saacadaha isha ka sii warhay isha ka sii eeg lagu oranaynin taaba wax doonaysa hooyo halkan yare gaadhayay bal labada saacadood maqanay caruurta isha ka sii eeg ma ha forever inaad kaga carartid marka dhaqan ahaan waxaynu leenahay inagu Soomaali hadaynu nahay ilmaha ugu horeeya inaan haday tahay taas loo gumeynaya kuwii ka hooseeyay inaan taayir way qaratay waan dilay kuwii hore saasan dilay kana saasan rabay inaan dilo yaa marka khalad kale hooyada ay khalad kale marka waxa weeye hooyooyinka caruurahooda kaga cararaya caruurta kale ka roon ma garan kartaan bilaadanka qof kasto adiga dhalay laakiin qulubtiisa waxa ku jira ma garan kartid marka waxa weeye caruurtiisa isku si haloola dhaqmo talabaad anu waxaan la yaabanahay caruurahan intii ninkii dhalay meeyay gabadhan ordaysa suuqa u ordaysa ee la silcaysa caruurtii ninkii dhalay meeyay ninkii caruurtan dhalay meeyay hooyadu waa in horta waxyaabo badan eegta war dumarka waxyaabo badan eega war dumar oo maskaxdiina ka shaqaysiiya caruurtiina dhashaan waa okay alxamdulillah waa nimco Ilaahay nasiiyay laakiin meesha aad ubucdaadiya beedkaaga dhiganayso horta eeg ninkii hadaanu shaqaynaynin waa inuu guriga jooga caruurta ilaaliya hadduu shaqaynayo waa inaad guriga joogtada ilaa caruurtaada ilaalisid labada wax ka dhaxaysa ma jirto laakiin sanad kasta waan dhalayaa oo caruur baan dhalayaa ninkiina ma joogo caruurtiina way silcaysaa anigina waan silcaya wax maxaan dhahday maskaxdu aan qaadi karin weeyaan intaasoo sanadood bay dumarka Soomaalidu waxa ku soo jiray war dumar ubadkeen inaad dhashaan la idin diidi maaye basriye bal imka reerkan waxa ku dhacay inan yaro ay dhaleen ba caruurtii ka reeleynaysay because iyadu waa caruur bay ahayd sheedaan baa qaatay sheedaan baa madaxa ka galay oo yiri war ana caruurtan la maxaa lagaaga tigi ku odhanaya halkaas ku caruur baash ninkii dhalay meey war dumar oo beedkiina meesha dhiganaysaan eega safety inay tahay in kale
haddaanay gabadhu hadday shaqaynayso oy maxana banaanka wax uga soo qabanayso ninku dee ha jooga carruurtiisa ha ilaaliyo haddaanu ilaashanayn muxuu dhalayaa u dhalaya haddaanu ilaashanayn carruurtii tan wax dhalaysaay adigu haddaanu ninku aan waxyaabaha kuu qabanayn aanu kula ogolayn waay aada isu hoos dhigaysaa sanad kasta wax ugu dhalaysaa miyaa dhiig iyo damiiraan lahayn marka dumarkiina soomaalida please carruurihina ilaashada oo meesha wax dhigaysaan eega inay ammaan tahayeen kale oo ubadkiina basar u sameeya oo ubadkiina kaka sii weyn ha u gumeynina kaka hooseeya intaasaan maanteed kaga baxayaa waxaan rajeynaya intayna maxaan dhahdaayay aad ka heshaan isu gudbiya anigu inkastoo gacanteedu culus tahay iminka marka khayr baan rajeynaya maca asalaama